juxa wuxuu leeyahay guri dhilo ayaan booqday markii ugu horeysay noloshayda waa markii ugu horeysay inkastoo guurka fallaagada dhexdoodu uu reeban yahay dhaleysugase la ogol yahay waa markii ugu horeysay wuxuu leeyahay jabhaddu ma ogoleen guurka laakiin inaad tumatid oo dhilaysatid waa wax mataqaanaa laysu ogol yahay markii uu juxa meeshaas tegey wuxuu la kulmay gabar etoobiyaan ah oo la yidhaahdo almas wuxuu yidhi mid gaaban oo naasa waaweyn oo la yidhaahdo almas ayaa ii iljibisay aniguna ishaan u jibshay inta ay isa soo qalloocisay ayay labadeedii naasood kan bidix garabka iiga xoqday ayay dhinaceygana habash ku soo tiri wuxuu gelayaa marka inuu ku hadlo luuqadda amxaariga ah afxaariga barta dawaawda weyno muxuu ahaay qariib kuma noqonayo afxaarigu baranaya waxay tiri naagtii fujug alleh oo ah macnaheedu af soomaali ahaan aniga xaggayga haddaan ka sheego waa igu ceeb laakiin si maldahaan rabaa inaan u sheego oo ah ma rabtaa inaan wada tumanno ama wada raaxaysano anaa weydiiye inta faantadeedii ka baday markaasi waxay iigu jawaabtay markaa idhi fujug falligaale ma rabtaa inaan wada raaxaysano ama aan wada tumanno waxay iigu jawaabtay gazam alleh lacag ma haysataa gazam alleh fujug alleh haddaad lacag haysatid aniga adiga wada tuman karnaa waa macsi markaas ayay naaskeeda ugu xaatataysay oo weliba bawdada iga dharbaaxday waa cajirkiisa iga dharbaaxday faantadeedii ayay ka batay iyadoo aan iga dhisan sintinow ayaan idhi si aan ula heshiiyo xagga lacagta aan kula heshiiyo sicirka qiimaha ay naagtaas ugala seexanayso bismi illaahi araxmaani iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay subax wanaagsan waxaan rabaa soomaali meel kastay joogta bal inay aan ogaanno oo aan akhrino buugga uu qoray juxa mar haddii horta ilaahay mataqaanaa amarka ilaahay horta lama celin karo qofkii mataqaanaa raba inay sharaftiisa ay dhacdana sidaanoo kale ayaa ku timaada inta aan arartaa dheer gelin qaybaha ka mida buugga waxaa ka mid a kow gurigii tumashada wuxuu halkan horta ku caynayaa magaalada layidhahdo gallaadi oo aad taqaanaan oo ah magaalada soomaaliyeed wuxuu ka dhigay inay hoy u tahay hoyga tumashada iyo dhaqan xumada wuxuu yidhi tan waa magaalada gallaadi waxaan rabaa inaan idin akhriyo buugga idinkaa wax kasta kala dhex bixi doona waxaana ogaataan soomaaliye erayada meesha ku qoran ayaa anigu akhrinayaahe hadalkaas waxaan ka afeefanaa hadalladaas hadal anigu aan sheega maaha hadhow yaan la dhihin ninkii xasan weli ahaa oo wadaadka ahaa mataqaanaa ayaa dhaqan xumo bilaabay marka waxaan rabaa buugga juxa uu qoray inaan idin akhriyo idinku un ogaada kala baxa laakiin erayadaas waa erayada buug ku qoran eraya aniga iga yimid ama aan aniga xasan aan sheega maaha tani waa gallaadi waa magaalo lagu tilmaamo laakiin waa tuulo weyn un aad ayay u kulushahay una boor badan tahay guryaha waa cashaan ka samaysan qoryo iyo dhoobo faantada looda la qasay waxaana deggan soomaali iyo dhilooyin etoobiyaan ah dhaqaalaha magaalada wuxuu ku dhisan yahay mushaarka ciidamada etoobiyaanka ah ee dalka difaaca dhinaca bari oo xeryo ku leh iyo geesaha magaalada markii ugu horreysay muddo 3 sano ah ayaan dhufayska jabhadda ka soo baxay 3 beri oo fasaxa oo aan muddo sugay ayaa la soo siiyay xoogaa lacagna waan wataa magaaladii ayaan tagay si aan u soo hawagadisto taasi muhiim ayay ii ahayd
saddex beri oo nasiino ah oo nabad ah waa igu qaali. hadda waxaan awoodaa in aan wax iibsado, timahana jarto, bal xoogaa dadka kale aan u ekaado. magaalada cid kama aqaan, laakiin taasi ma ii dhibayso. kol haddaan lacag haysto waa in aan isku dayaa sida ugu habboon ee suurtagal ah oo aan fasaxayga aan u adeegsado, oo aan ku qaato fasaxayga aan ku qaato, oo suurtagal ah inaan fasaxayga u adeegsado. laakiin doorashooyinka waxay ka kooban yihiin marka aad madadaalo aad u rabtid saddex waxyaabood oo kale ah: suuragal inaad qamri, jaad iyo dhillo ayaa ii furan. saddexdaas wejaa ii furan. magaalada aan joogo waxaa iga furan inaan ama qamri cabo ama jaad cuno ama aan dhillo raadsado. go'aanka doorashada ma adka, weligeyna qamri ma cabin. jaadna habeenkii aan soomaaliya ka soo galay ayaa ka mas isiiye, waana nacay. guri dhillo ayaan booqday markii ugu horraysay noloshayda. inkastoo guurka fallaagada dhexdoodu uu reeban yahay, dhillaysigase la oggol yahay. wuxuu leeyahay jabhaddu ma oggoleen guurka, laakiin inaad tumatid ood dhillaysatid waa wax mataqaanaa laysu oggol yahay. markii uu juxa meeshaas tegey wuxuu la kulmay gabar etoobiyaan ah oo la yidhaahdo almas. wuxuu yidhi, mid gaaban oo naase waaweyn oo la yidhaahdo almas ayaa ii iljibisay, aniguna ishaan u jibshay. inta ay isa soo qalloocisay ayay labadeedii naasood kan bidix garabka iiga xoqday, ayay dhinacaygana habash ku soo tiri. wuxuu gelayaa marka inuu ku hadlo luuqadda amxaariga ah. waxay tidhi naagtii, fujug alleh, oo ah macnaheedu af soomaali ahaan aniga xaggayga haddaan ka sheego waa igu ceeb, laakiin si maldahaan rabaa inaan u sheego, oo ah ma rabtaa inaan wada tumanno ama wada raaxaysanno. anaa weyddiiye inta faantadeedii ka baday. markaase waxay iigu jawaabtay markaa ihi fujug falligaale, ma rabtaa inaan wada raaxaysanno ama aan wada tumanno. waxay iigu jawaabtay, ganzam alleh, lacag ma haysataa? ganzam alleh, fujug alleh, haddaad lacag haysatid adiga wada tuman karnaa. waa macsi. markaas ayay naaskeeda ugu xaatataysay oo weliba bawdada iga dharbaaxday, waa cajirkiisa iga dharbaaxday. faantadeedii ayay ka batay iyadoo aan iga dhisan. sintinow ayaan idhi si aan ula heshiiyo xagga lacagta aan kula heshiiyo sicirka qiimaha ay naagtaas igula seexanayso. sheekada halkaas markay joogto wuxuu la kulmayaa gabarh soomaaliya. intaas markay marayso naagtii etoobiyaankii asaga wuxuu leeyahy waa heshii weynay, laakiin anoo sheekada u wada ayaan waxaa arkay gabarh soomaaliyeed oo gadaasheeda ka soo socota oo idhahaysa, waryaa maxaa naagaha dhilooyinka aad ka rabtaa? aniga ayaa joognee. kor iyo hoos baa intaan ka eegay ayaan ku idhi, laba dhillo hadba afkayga taqaan ayaa kuu xiiso badan. intaan kor iyo hoos ka fiirshay ayaan waxaan idhi, laba dhillo midda afkeeda aad taqaan ayaa kuu fiican. subxaana allah. waxaa laga yaabaa inaan la gala gorgortan. waxayna ii sheegtay inay ka qiimo yar tahay. isla markaasna waa heshiin. waxaan garnay heshiis degdega. naagta soomaalida ahayd waaya. sidaas darteed intay garbaha soo nuuxnuuxisay ayay run ii sheegtay. waxayna oggolaatay inaan kula seexdo habeenkaas intii naagta etoobiyaanka wax ka yar ayaan kula heshiiyey. heshiis degdega oo aan qorrayn ayaan wada galnay. ma hubo in sidaani ay ku timid tartanka suuqa dhilooyinka iyo inuu si gaar ah uu yahay, laakiin taasi muhiim maahayn. gabadhi waa la heshiiye u leeyahay. soomaaliya marka qormada waa dheer tahay, buugga waa qaybo badan. waxaan rabaa inaan qayb bar ka soo jeediyo.
buuggan wuxuu ka soo horjeedaa dhaqanka iyo diinta islaamka. wuxuu ka soo horjeedaa haddii buug la qorayo buug waa dhaxal reeb. waxaa la rabaa in carruurta soo koraysa ay dhaxal kaa reebto ama aqoon lagaa reebto ama taariikh lagaa reebto. intaba buugga kuma salaysna. wuxuu ku salaysan yahay marka ugu horraysa inuu ammaano jabhadihii dhiigga sokeeya daadshay iyo inuu ka sheekeeyo dhaqankii xumaa ee mooryaanimadii iyo inuu nin weyn oo halkaas u soo taagan oo dhahaya waa dhilaystay ama waa tuntay ama naagaa la tuntay dhahaya anigu uma dhahaye halkanay ku qoran tahay. waxaan rabaa soomaaliya hadalku inaan badiyo ma rabo. culammada soomaaliyeed, wasaaradda diinta oqaafta, ciidanka booliska soomaaliyeed, dhammaan inta dhaqanka ku shaqo leh inay buuggaas dhaqan dooriska ah ay ka hor tagaan. laga digo inaan buuggaas uusan ku soo faafin soomaaliya guud ahaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.